yartan dheere haddaa dunta maari laha sida dheftaan caloosha ku dhiigaan laha وهجاج داوديال وحنا تاجنا هاي برتمها مجال هرجيسة إسلام مركز نوحنا وديار قربنا برنامج كابتن كسم نسلفه وبركتين قيبه رأي نصاد ومي إسلام مكان وحنا قصة قلنا هاي هل كنا تاجنا هاي أنا قلت كائن سؤال ويدين دونا إسلام مركزنا بدك كتشواب إسد الصحبة وكتشواب السؤال شاسي أي كقول يسن دونا الأبال مرن هذا السؤال أي لو يدي إسلام مركز سمتل أي سكول سو كتشواب الله بركودنا سومالك ويريان إسلام مركزنا maxaan dhahdaa ay su'aashaasi kartaan shirkadda Samtel ayaa abal marin gudoosin doonta isla markaa bal imikana aanu dadweynaha reer Hargeysa mikrofoonka qaar kamid ah ku soo dhaweyn waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka News TV marka hore magacaaga noo sheeg magacayga Abdulsalam Rasmaan Ali gaari aan wadin ayaa ku dhaafay tan su'aashina hore u galo yaa wada gaariga ruux dumarande magacaaga noo sheeg marka hore waan kugu soo dhaweynaa barnaamijka kaftanka News TV dayib jaamac Ismaaciil Balayna su'aalahan ku weydiinayna gaari ayaa ku dhaafay aanan wadin maxaad malaynaysaa waxaan u maleynayaa gabadhan nin la socon yaa barnaamijka kaftanka News TV magacaaga noo sheeg wala waxa Abdulfataax Shaasma ad sax su'aal baan ku weydiinaynaa waxaad noo sheegtaa gaari ayaa ku dhaafay aanan wadin gaariga daan waxaan u maleynayaa ama gabadh baa wadaa marka luutur duu casri baa gaariga gaariga marka luutur baa wadaa gabadh يعني وكل سؤال دوينيا برنامج كفتن كسم News TV magacaaga noo sheeg muqtaar la shaadiriye su'aal ayaan ku weydiinayna waxa ku dhaafay gaari aan wadin maxaad malaynaysaa baa taakmeed lagu hagee iska xirxiray ee macalkamada gidaarada meelba qoortiisa inta waranigu waxa kale wax kale daax lagu weydiiyo waxaan karnay reediga ka tornay بابا كان رميت كذي وحقي عارف هلك سوي قارئ أمريكي بكمية كفتن كسم News TV حمزة محمود حمزة سؤالين كويديننا قارئ نودين داخل دافع وقف فكرة واحد هفاوية قف فكرة واحد هفان ما يوحنا كل قارئ نودين داخل دافع محو قارئ عارته قارئ مركورة محو هذا قارئ كفتن كسم News TV magacaaga noo sheeg أحمد الله سؤالين كويديننا قارئ نودين يا كدافع قارئ أنا نودين ما كدافع الكمبيوتر بوضمية محد ملانسة أنا حلم أنا لا مدين أنا دقيق بودي مرة ثانية مدين أنا جالس ولا ده كمبيوتر ولا لا مدين yartan dheere haddaa dunta maari laha sida dheftaan caloosha ku dhiigaan laha waxa ku dhaafay gaari aan wadin way ma garanayaan ما قرنيسي حاول ما ينسي حكوا لك هذيك وحويندي هي ما هذا محسن والله تمغل في إيه كذا ما قال كلام وحاول جيسين إنك ديار أمي وحاول جيس ولا ديار أمي قف كورة وش ديار قرآن السلام عليكم وانكم قصة دويني برنامج كفتن كسم News TV وان قرتي الحمد لله رب العالمين أرجو الله رب العالمين جل جلاله عالمكنا إلهي ما كتلنا إياه سيدا درادد أرجو ذلك واحد كيشرا السحر برا فرضان سوري وانك حماديرو سحر برا كمان نهلي لكن برنامجكو برنامج كفتنا إسلام مركز سؤالي ينقويديننا إن تصفي عن قرن سنة ورفتيننا أبا ما زنتها قال أيها كنا في آن ونودي محد ملانسا أو كمبيوتر ده كمبيوتر باوي waan ku faraxsanahay inay dhalinyaro ama hablo ay garabkayga soo taagan ayagoo su'aasha isla markaas ka jawaabayaan si gaar ah baan u faraxsanahay barnaamijka kaftanka News TV hawlaha ayaa ku yar laakiin galabta aad baan u faraxsanahay in waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka News TV waan dhawahay walaashay qaali magacaaga Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa baabay gaar ayaa ku dhaafay aanan wadin maxaad malaynaysaa anigu والله سأشا ما قرني وين يا اسكو قرن دونت قالها قاري أنا نودين بقول والله سأشا ما قرن كرا هدي سأشا قرن لهيد لمبر سمتي لنا هاي سنة هيد
galabta shirkadda Samtel ayaa ku guddoonsin lahayd hadiyad laakiin insha Allah su'aalaha dambe iyo barnaamijka dad soo diyaar garoobi doontaa waa kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka Samiis TV magacaaga noo sheeg waa aniga ugu xadan baa leeyahay waxaadina su'aalayaan ku weydiinayaa gaari ayaa ku dhaafay aanu nin wadin maxaad u malaynaysaa waxa ma mid gabadh waday dhaaftaan miyaad u malaynaysaa mise waan u malaynaya ma laakiin waxaad hubto ma ha Samtel ma leedahay ya Samtel ma ha leedahay lambarkaaga Samtel hal daqiiqo gudahood Soomaali ku yeedhay waxa weeyaan 91 4 8 4 laba tiri laakiin Soomaali ayaan ku wari aad bay mahadsan tahay magacaaga noo sheeg magacayga waxaan Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed waan kugu soo dhaweynayaa runtii barnaamijka kaftanka Samiis TV su'aalayaan ku weydiinayaa haddii su'aasheena hore u galno gaari ayaa ku dhaafay aanu nin wadin maxaad u malaynaysaa gaari ayaa ku dhaafay aanu nuugin gaari ayaa ku dhaafay aanu nin wadin maxaad u malaynaysaa markaa wadin waxaan u maleynayaa anigu de gaari aanu nin wadin waa technology waa heer la gaaray yaa imika waxa jira gawaadhiis ka socda remote lagu wada caalamka kale oo waxaan ku remote lagu wada Hargeysa ma ku aragtay laakiin Hargeysa ma kuma arag ma maleynayo laakiin waxaan filaya inay noo imaan doonaan laakiin imika de gaari aanu wadin baa ku dhaafay technology inoo ma iman macnaha inoo ma iman de qaabka casrigaasna wala aragna wala maqalna waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Samiis TV magacaaga noo sheeg magacaygu waa Cabdirashiid Aadan Cabdullaahi su'aalayaan ku weydiinaynaa gaari ayaa ku dhaafay aanu nin wadin maxaad u malaynaysaa te gabar baa wade waan hubaa si fiican u fiir waan hubaa ha Samtel ma leedahay lambarkaaga Samtel hal daqiiqo gudaheed ku yeedhay soo Soomaaliya 9 1 eber 9 7 6 5 waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Samiis TV magacaaga noo sheeg magacaygu waa Saciid Mahad Warsame waad ku mahadsantihiin soo dhaweyntaad igu soo dhaweyseen TV-ga ما شاء الله سؤالي أنكو الدنيا قال يا كنا في آن نودين حب ملانس نودين قبل باوتي قبل باوتي صح مية دركيس ماي قبل باوتي إد كلا ودك سببته إن من هاتان ودن إد كلا ما جبت موتي قبل ويا وبسيط كنيكا وإنان صح سمت الملا ماي تلاسون بالله ما كحماي أدب لهان لهايد سمتال هذه يدكم قوليسين لهايد أبدا ما تسمتها سدويني برنامج كفتن كسميس تي في مقعد ناشئ ولا بندوي مقعد روبلا إسماعيل بندوي سؤالي ينكو ديننا أن قاعد أياكو دافيان النمودين محمد ملانسة ولا الكل إلهي لما تشندرون بابورا ورقي الدمر هذا النمودين قبل بودي حتى عدين سمرها waxaan ku cadeynaya gabar baa waday waayo adduunka de waxa jira rag iyo dumar Soomaa hadaan wadin gabar baa waday wala wada ilaahay abuuray سمتل ملابا lambarkaaga samtan hal daqiiqo gudaheed Soomaali ku yeedhay waxa weeye 9 waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Samiis TV magacaaga noo sheeg magacaygu Cabdullah Axmed Albi su'aalayaan ku weydiinayaa haddii aad su'aasha ku garato al samtan la sidato shirkadda Samtel ayaa abaalmarin si toos ah ku guddoonsinaysa marka su'aashayna tin hore u galo gaari aanu wadinayaa ku dhaafay haye maxaad malanaysaa maxaa tiri gaari aanu wadin ayaa ku dhaafay waa magaray kamid ah laakiin waxa ku sheegay inaan Samtel sideen maadaama abaalmarin marna bixinaysaan ha ku xulno qofka Samtel waayo qofka abaalmarin haddaad guddoonsinaysaan abaalmarintii hata Samtel noqoto hadii laga waayo meel guddoonsinayo سأشي قرطة سنتين نسيت خلاص نركب نركب بنسيت وخبز دويني برامج كفتن كسم نستي في مقعد ماشي محاضران عبد سؤالي ينكو ديني قاعد أيها كنا فيها من المدين يا ودي قاعد قاس تكوي بودي تبغى أطيعك حي ما قلتها تبغى سلاس محا بالحوضة يرفكرني قوان ودين تمرها قور بود سمتل ملادها سمت لمبركاga سمتل hal daqiiqo gudahood ku yeedhi Soomaali Soomaali ku yeedhiya baayay 4 soddon 60 47 aad iyo aad baad mahadsantahay sidan horeba idinku sheegnay ama barnaamijyadii hore aad ku soo daawateen shirkadda Samtel waxay ugu tala gashay ciddii ka jawaabtay su'aasha isla markaasna lambarkeeda Soomaali ku yeedhisa inay hadiyad guddoonsiin doonto isla imika barnaamijkeena ku guda jirna mar dhowna waxa daawan doontaan ayadoo dadkii guuleystay la guddoonsiinaya hadiyadihii loogu tala galay aad iyo aad baad mahadsantiin daawadayaal internet aan tagayno toos loo helayo
tagayno toos loo helayo waa tiknoolajigii adduunkii duulaya magaalada somtel way ka tisqaadeen duulaya magaalada somtel way ka tisqaadeen gasha somtel mobilkaaga gasha somtel gurigaaga gasha somtel mobilkaaga gasha somtel gurigaaga waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka Samiis TV magacaaga noo sheeg maadsani cabdinuur waayale su'aal ayaan ku weydiinayaa gaari ayaa ku dhaafay aanan wadin yaa waday gaarigaas way gaari aanan wadin ayaa ku dhaafay gaariga ayaa waday gaariga ku dhaafo cidina wadin nin ma wadin gaarigaas gaari wadin ra ma tagtaa hadam shimba wada hada afimba wada ma laga yaabaa marka qaarna gaariga jiminku ka haystaan hadda isbuuxa malaade laakiin adigu jimbaad ku adkaysanaysaa anigu waxaan inoo goornaa waxaan ekran maraa waxaan taaganahay wali bartamihii Hargeysa anagoo dadkii su'aalaha kaftanka Samiis TV weydiinayna isla markaas aad kolba dhinac ka eegina gabadhan ila taagan haye ku soo dhaw barnaamijka kaftanka Samiis TV waan ku dhawahay walaal su'aal ayaan ku weydiinayaa gaari ayaa ku dhaafay aanan wadin maxaad u malaynaysaa gabadh baa waday haa ma hubtaa nacam halkeen maris mid arkaysi تصوتيك المدرسة معها والله وكل شيء دويني برنامج كفتن كسميس تي في مقعة ناشي خضر اسماعيل حسن خضر سؤالين كويدينيا قارية كلها فيار المودين يا ولدي قاريقاس قاريقا من باودي ايه من دون مودين قاريقا وانا يدافي قاريقا يدافي يا ولدي الله يبركها قاري انا المودين ايا كلها ناك باودي والله قوش لكن هذا ما صنت قارئ ما على كلمة قارئ يشوف معليش ما يقرأ معليش يشوف عيرت انت بعرفوا انتم لاقي ما قرأتوا انكم قصة دوينيا برنامج كفتن كسميس تي في مقعة ناشي ولا من عبد الرحمن محمد ما السؤال ده كويدينيا قارئ ايا كدافعان النيري يا ولي قارئاس أنا نيري داما قور باوتا قور باوتا ما حتري قارئ باك دافين ننمو ودين قارئاس قارئ باك دافين ننمو ودين تعيد ودا قور ما فتا ما كوكو سoo dhaweynaya barnaamijka kaftanka Samiis TV magacaaga noo sheeg waan ku dhaweeyay magacayga waa Sagal Muuse ma sha Allah isku magac baynama sagalay gaari ayaa ku dhaafay aanan wadin hada malaynaysaa dadka jinin baa ugu soo dhaweynaya barnaamijka kaftanka Samiis TV magacaaga noo sheeg maxamed su'aalaan ku weydiinaya gaari ayaa ku dhaafay aanan wadin maxaad malaynaysaa كان ودين شبه ورا ودي شيدان iska maray أبغى شدان وهاجاك داوديال waxaanu ka nimid suuqii magaalada Hargeysa sida darkeyseen waxaanu weydiinaynay su'aal dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa isla markaa ayagoo ka jawaabaya su'aasha la weydiiyo hadii ay su'aasha si toos ah uga jawaabaan isla markaana ay lambarkooda Samtel Soomaali ku yeeriyaan shirkadda Samtel ayaa sida in barnaamijyadii horeba ku soo daawan jirnay ugu tala gashay abaalmarin ay ku guuleysteen dadkan hareerahayga taagan waxaanu ka nimid suuqii Hargeysa waxaanu joognaa studio telefishinka caalamiga ee Samiis TV aniguna waxaan ahay Sagal Guure bal aan ku soo dhaweeyo dadka ila jooga ee maxaa guuleystay ee hareerahayga taagan hadii aan ku horeysiiyo inanka koonaha taagan محمد حسين آدم محمد عبد حسين واحد كم ده هاي dadkii hore ee barnaamijkan aynu caaw ku guda jirno barnaamijkii ka horeeyay dadkii guuleystay sidee baad u aragtaa shirkadda Samtel abaalmarinta ay dadka guddoonsiinayso iyo su'aalaha uu barnaamijka kaftanka Samiis TV-ga uu dadka weydiinayo waan mahadsantahay marka hore Sagal magacaygu waa Sheekh Maxamed Cabdi Xuseen waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa waa barnaamij iyo shirkadda isku barnaamij bulshada iyo shirkadda isku xidhaya waxaan leeyahay soo dhawaada waan ku faraxsanahay wax ku guuleystay وهجان محمد عبد الحسين وحويان guuleystayaashii hore ee barnaamijkii kaftanka Samiis TV isla markaana aan halkan ka shaaciyay aan idin sheegay inaan barnaamijka xigaan ku guddoonsin doono abaalmarinta ay shirkadda ay Samtel ugu tala gashay laakiin dadkii saddexdii qof waxa nagala jooga Maxamed Cabdi Xuseen isla markaa labadii qof ee kalena lambarkooda ayaa xiran
hadiyadii ay shirkadda Somtel ugu tala gashayna halkan ayay u taalaa ama xafiiska dhexdiisa ama studio-ha dhahdo telefishinka caalamiga ee Sam News TV isla markaasna aanu gudbo dadka kale ee barnaamijkan aynu caawi ku guda jirno ku guuleystay hadiyada ay shirkadda Somtel ugu tala gashay waan kugu soo dhaweynayaa walaalo barnaamijka kaftanka Sam News TV mar labaad iyo mar saddexaadba inagoo suuqa Hargeysa ka nimid ayaa hadda waxaynu ku sugannahay studio-ha telefishinka caalamiga ee Sam News TV sabab aragtaa barnaamijkan kaftanka Sam News TV iyo shirkaddan Somtel iska kaashanayaan su'aalaha dadka lagu weydiinayo isla markaana abaalmarinta lagu guuleysanayo والله وش كذا اليوم وين مرو بدرين شاف كل شقاني صار أنا أزيد بمحسن adigu su'aasha lagu weydiiyay ayad ka jawaabtay lambarkaaga ayad Soomaali ku sheegtay sidee baad u aragtaa hadii ay Somtel waan ku faraxsan والله هاس خطرنا ويكون صار على تليفونك ولا حاجة جعلك يا حسد أدينا كفتن كوي رتورنا أدينا برنامج كفتن سكي حاجة صد كوي رتورتها ما أدينا حاجة خفوا جعل مو شيء تبغانه سلاسة هو تهاي مجا مركلة سيد كي مركي هراء الشاشة أيام لقى أركي وحن كوضع مركي هراء dadkii mujtamaca hay'ad ku dhex jirtay ama suuqii magaalada bartamaha Hargeysa ee joogtay su'aasha lagu weydiiyay imikana waa adig iyo xitaa dharkii baad xiran tahay mid shaqaynaysay ma shaqaynaya wad aragtan daawadiyeelina kan wuxuu xiran dharkii shaqada asagoo shaqadii ku jira ayuu guuleystay oo maxaa dhahday magaalada Hargeysa oo dhex maraya isla markaana sidii un baanu anaguna ugu yeernay oo maxaa dhahday aan halkan ku keenay waayo maxaa dhahday waxaan ugu tala galnay barnaamijka inaan ku guddoonsiino maxaa dhahday dadkii guuleystay studio-ha dhexdiisa shirkadda Somtel waxay kuugu tala gashay lambarkaaga Somtel inaad bil firiya oo adeeg muraada aad ku hadasho sidee baad u aragtaa وفي وفي أنا حقا أقول دقائق قرب كي قبله وكوكو سودوينيا مركلة تلفزيون Sam News TV هي برنامج كفتن كي كبحبا وأندوه ولا قالي مقعي وعبد الشيد هذا وأنا تاج شركة أنا أدي بان رأيي ونكسن أي وضع ممكن تاجر سنة الوقت هاي هي walaal magacaygu waa Rooble Ismaaciil aad baan soo dhaweynaya shirkadda waana ku taageersan dhiirigelinta ay dadweynaha dhiirigelinayso waxaan leeyahay hore u socdo insha Allah waa tahay daawadayaal haddaan intaa kaga soo noqdo 40 qof isla markaas guuleystay ee garabkayga taagan barnaamijku waa barnaamijkii kaftanka Sam News TV isla markaana waxa isla kaashanayay shirkadda Somtel iyo waliba anagoo ah telefishinka caalamiga ee Sam News TV محمد عبد الحسين واحد كوتشر تا جوليستياشي أما ضدك هراء برنامجكي كهري جوليستي شركة Somtel waxay kuugu tala gashay in lambarkaaga bil free aad ku hadasho isla markaasna ay si toos ah kugu soo daayaan oo aad caawa ka bilowdo sabab waragtaa aad baan ugu farxsanahay sagal waan soo dhaweynaya waxaan leeyahay waan mahadsantiin aad baad mahadsantiin adigana sidoo kale sidan mar horeba kugu sheegay shirkadda Somtel waxay kuugu tala gashay inaad bil free ku hadasho kaarkaaga Somtel sabab waragtaa soo dhaweynaa aad iyo aad ku farxsan mala xog bad u sheekaynaysaa abla yaree xijir magaalada Hargeysa aad baan u salaamaya markana aanu gudbo Cabdirashiid aadan isla markaasna asaguna ah guuleystayaasha ku guuleystay barnaamijkan kaftanka Sam News TV ay shirkadda Somtelna ugu tala gashay inay dadkii su'aalaha ka jawaabaan lambarkoodana Soomaali ku sheega ay guddoonsiiso hadiyad Cabdirashiid wuxuu ahaa dadkii galabta markan dadkii caawa aan weydiinay su'aashii u horeysay isla markaasna ahaa qofkii u horeeyay ku guuleystay shirkadda Somtel abaalmarinta ay ugu tala gashay dadka ka jawaaba su'aashan lambarkoodana Soomaali ku yeeriya Cabdirashiid wuxuu ku guuleystay 4G Cabdirashiid shirkadda Somtel waxay ku guddoonsiinaysaa ama baa anaga noo soo wakiilatay inaan ku guddoonsiino 4G sabab waragtaa aad iyo aad baad u mahadsantiin dhamaantiin iyo shirkadaba waan ku faraxsanahay aad iyo aad waana hambalyeynaya waxaan sii gudbayaa Rooble haye Rooble adigana sidoo kale shirkadda Somtel galabta waxaad qofkii labaad ee su'aasha ka jawaaba isla markaasna ay shirkadda Somtel ugu tala gashay inay guddoonsiiso hadiyadaas oo ah in kaarkaaga adigana free lagaaga dhigo sabab waragtaa waxaan u maleynayaa habli yaree Hargeysa ka seexan mayso wad xijinaysa soo sama walaal horta hablaha badan iskuma fiin laakiin mid un baan kuwaaga tayadaas uma iska xijinay hadii la heeraa haddaad mid hayso waa habli Hargeysa bay ka dhigan tahay in aad iyo aad bad maxaa radayay u mahadsan tahay wa hagaag daawadayaal
afartan qof sidaad wada aragtaan waa saddexdii galabta guuleystay iyo maxamed oo asagu ah dadkii hore ee barnaamijkii hore guuleystay isla markaasna labadii qof ee horena lambaradoodii ayaa xidhan waxaanu rajaynaynaa ayaguna inay caawa ismaqlayaan isla markaasna ay si toosa shirkadda Samtel uga doonaan abaalmarintii ama barnaamijka dambe barnaamijkan xiga ee kaftanka Samnews TV si toosa hadiyadoodii lagu guddoonsiin doono galabta dadkan ayaa guuleystay la jooga inankan Cabdikariin waa inanka ku Cabdirashiid iga raali ahaado mar walba Cabdikariin taasan ما wax jacayl ma jira Cabdirashiid waxa kale waliga lama sheekaysan baan u maleeyay Cabdikariin ka sheegay hay Cabdirashiid oo shirkadda Samtel annaga ay noo soo wakiilatay inaan ku guddoonsiino hadiyada forjiga naga guddoonayaan kulana ka guddoobay sagal wayna maasiin shirkadda aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa hormar kale waa hormar la sii wadaan leeyahay caaw internetka ka seexan maysid soo ma kale hore uga ma seexan jirtay tan waa saayid oo wax gaar ah heshay aad iyo aad saacada laga bilaabo ama habeenka caawa laga bilaabana afarta qof saddexda qof marka laga reebo in Cabdirashiid saacada laga bilaabo marka laga reebo Cabdirashiid afarta qof ee hareerahayga taagan oo Cabdirashiid laga reebo saddexda qof ee kale lambaradoodu waxay u yihiin free isla markaasna bil ayay ku hadli doonaan shirkadda Samtel ayaa ugu tala gashay halka ka sii wada baan leeyahay waxaanu idin sheegaynaa daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha naga mudanaw inuu barnaamijkan sii socon doono isla markaasna cidii ka jawaabtay su'aasha Samtelna lambarkooda Samtelna ku sheega Soomaali inay maxarday guuleysan doonaan cid gaar ah barnaamijkan uma xidhna cid gaarana Samtel ma siinayso cidii su'aasha ka jawaabtay lambarkeedana Soomaali ku yeedhisa ayuun bay hadiyada guddoonsiinaysa waad arkaysaan saddexdan afartan qof ee hareerahayga taagan inankan waxaad ka daawateen barnaamijkii hore saddexdan kalena waxaad ka daawanaysaan isla caawa barnaamijkan aynu halkan ku qabanayno ayadoo maxarday kamarada aad si wanaagsan ama shaashada aad si wanaagsan ba uga aragtaan in wajigoodu iswaafaqsan yahay oo ayagu yihiin hadad macnaha isleedihiin waa dad la soo bedelay waa dad la soo ballamay dadku waa ayagu wad aragtaan aad iyo aad bad mahadsantiin daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha naga mudanow barnaamijka waxa idin socodsiinaysay anigoo sagal guura sidoo kale waxa xagga kamarada inoo jooga Maxamuud Saleebaan injineerka aan idhaahdo iyo sidoo kale Khalid iyo sidoo kale editorkii Maxamuud Saleebaan aad iyo aad bad u mahadsantiin waxaan idinkaga tageynaa anagoo isku duuban dhamaanta iyo guuleystayaashii anigoo sagala iyo maxay waxaan kaga tageynaa dadkii sidaas iyo nabadgelyo kartan dheere hadaa dunta maari lahaa sida dheftaan caloosha ku dhiigan lahaa